بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن إذا لهانتي dhageystayaal iyo daawadayaal goor kasta iyo goob kasta aad naga dhageysanaysaan ama aad naga daawanaysaan halkani waa Darwish TV codka shacabka SSC waxaa martino ah Axmed Raasto gudoomiyaha golaha waqooyi bari ee Soomaaliya Axmed Raasto gudoomiye marka hore ku soo dhawow telefishinka iyo raadiyaha Darwish radio and TV codka shacabka SSC محمد باع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبا أديك إيو هالودينا ذا مدحضة يتي في يدك الصومالية ذا كحرم با السلام يعني ودوه واتاي قدومي بالمركة هوري انتانا حالة عكرن قبل هذا SSC أنا أوجد بين وحور بحنا جسيسا ومحي جراهن وقوي بريء الصومالية وجدده وأساستين محيتها محمود قولها وقوي بريء الصومالية وحكم مديسان باشا ورسنجلي أما ماخر استيج SSC أما خاتوم SSC نقدر البحنتة يفرشني جاري كومبي مردبان dadka deegaanada dega waqooyi barigiisa dega ayaa ku mideysan waxaan la aasaasay oo adiguba aad goobjoog ka ahayd ama ka mid ahayd dadkii aasaasayaasha ahaa ee la soo shaqeeyay bilowgii dadkan waxay dareemeen inay dhibaato wada haysato dhul wada leeyihiin wada dhasheen laakiin ay dhib ka haysato guud ahaan Soomaaliya oo aanay qayb muhiim ah kaga jirin oo wax ka soo gaarin qaybta labaadna ay dhibaato ka haysato dhinaca Somaliland ama beelaha ku abtirsada maamulkooda SNM ku abtirsada marka taasaa waxay keentay maxaa inaga kala qoqobay horta inagu maadaama aynu dad wada dhashaynu nahay isku deegaan nahay maxay cid kale inoogu dhaxaynaysaa ma inuu inagu iska rabsanno oo wax wada qabsanno saasay ku timi muddo dheer aad laga joogo ilaa 9 sano in ka badan ayuu soo jiray waa tahay marka aanu gudogalno waxaanu ka warqabnaa asaaskii runtii aad baan u socday iyo bilowgii iyo sababihii loo asaasay ujeedadiisuna waxay ahayd in gobolada waqooyi bari loo sameeyo maamul goboleed ama dadka la isu keeno hadda waxaan ka warqabnaa in waxaan ka warqabnaa magaalada Laascaanood xaaladda ka socota waa ka warqabnaa in dadkii iska saareen maleeshiyaadkii jabhadda argagixisada SNM wali dagaal ka socdaan waxay sheegeen inay toos u hoos tagayaan dowladda federaalka Soomaaliya marka ka golo waqooyi bari ahaan idinku sidee u aragtaan xaaladdan gobolada SSC gaar ahaan magaalada Laascaanood ee dagaaladii ka socday iyo sida looga saaray jabhadda argagixisada SNM محمود هو سؤال في عنوي هرت إنتانا سؤال شو بدك قلين dhibaatada Laascaanood markay ka dhacday oo dagaalkan maxaa la yiraahdaa barakicinta iyo duminta iyo dilka iyo genocide-ka uu ka dhacay gobolka Sool muddo dheerna uu soo socday gurmadkii ugu horeeyay intii hore sorry beesha dhulbahante iyo fiqishini iyo gari kombe ayaa hawshu dagaalku ku socday laakiin markii dambe gurmadkii ugu horeeyay reer waqooyi bari bay ahaayeen beesha warsageli bay ahaayeen iyagaa uu soo gurmaday oo uu soo horeeyay gurmadada hiil harti ee yimi waxaana keenay isku xidhnaantii golaha waqooyi bari asaaskiisii dadkii xubnaha ka ahaa maxaa la yiraahdaa guddiyada ka ahaa golaha waqooyi bari iyo shacabka reer maakhir ayaa iska kaashaday arrintaas oo hormood u ahaa inay arrintani martay ugu horeeyay gudoomiyaha iyaga guddiga Suldaan Mursal waan kartay waxaan ka warqabnaa xagga markaan fiirino runtii gudoomiyaha Mursal waa jeclaa inaan wareysto xam badan baa jirta oo la leeyahay reer barameedku ama reer sanaag aad uma soo gudban oo markaad u fiiriso ciidanka ka jooga iyo ciidamada ay haystaan oo kale dadku inta badan waxay isweydiinayaan boqolkiiba 10 baa ka jooga marka arrintaas maxaa iyada ka leedahay
inkastoo aad sheegtay bilowgiiba inay ahaayeen reerihii ugu soo soo gurmaday wallaahi runtii taasu waa dadka doonaya dadka inay fidmo dhex dhigaan baa wararkaa faafiya haddii gabdhihii kibista dubayay iyo ciidankii ugu horreeyey ee gurmadka ahaayoo uu generaal indha yare uu hogaaminayay laascaanood ay ugu soo horreeyeen hiil walaal maxay ahaydtay haddii hubkii ka yimi haddii dhaqaalihii ka yimi haddii qurba joogtii dhaqaalihii ku bixinayso yacni oo reer barameeda ile baran indha yare baran buu ka soo kacay markaynu haddaynuba sarrifno beesha warsangeli dee caasimadda beesha warsangeli waa baranna waftigii ugu horreeyey ama dhaqaalihii ugu horreeyey hiil harti baran buu ka yimi marka su-aashaas waxaan leeyahay dadka sidaa qaba waa tahay aad ba mahadsan tahay waa tahay waxaynu ognahay in guddigii 33 ahaa isimadii aqoon-yahanadii beesha dhulbahante iyo fiqishini iyo gari kombe iyo madhibaan intaasoo beelood shirkoodii ay ka soo saareen go'aamo ah inay magaca ay SSC khaatuma yihiin sidoo kale ay federaalka dowlad federaalka ay hoos tegayaan marka ka gudoomiye ahaan adigu sidee u aragtaa ma is leedahay magacaas waa sax mase waxaad is leedahay magacan waqooyi bari ayuu ku fiican yahay haddiiba maamul loo sameynayo goboladaasi wallahi anigu waxaan qabaa dee horta waddanku dhibaatada ka jirta marka culeysyada dul saaran laga qaado oo ciidamadan xoogga muddada dheer ku haystay somaliland ama SNM ee hadda deegaanka ku sugan gaar ahaan gooja cadde de waddanka marka laga saaro ama si nabada ay ku baxaan oo baaqyada dee reer maxaa la yidhaahdaa reer SSC iyo dadka soomaaliyeedba ay usoo jeedinayaan iyo dad ka mid a weli beesha isaaqba ay leeyihiin war ciidanka ah laga soo saaro oo dadkaas iyo isku dhimaanin dad lebaa jira oo runtii aan fursad loo siinin oo muuse iyo dee rajiibkiisu aanay fursad u siinin inay maqlaan marka haddii ciidankaas nabad ku baxo waa sida soomaali doonayso inaguna aynu doonayno dadka wanaagga jecel iyo dadka soomaaliyeed dhiiggiisa aan jeclayn ay doonayaan laakiin nasiib darrada muuse iyo inta ku xeeran arrintaa diyaar uma aha marka haddii waddanka uu gacanteena kusoo wada noqdo waxaan qabaa dabcan in gogol loo dhigo beesha dhulbahantee gogol dhigto walaalahooda warsangeli gari kombe iyo in kasta oo inta wada degta dee maxaa la yidhaahdaa waa tahay markaad fiiriso ka istaraatiijiyahaan markaad fiiriso runtii gobollo badan baa jira sida galmudug oo kale waa gobol iyo bar marka ma is leedahay beesha dhulbahante keliya iyo beesha fiqishini oo ay ka baxsan tahay beesha warsangeli maamul goboleed waa noqon karaan maxaase u diidaya inay noqdaan horta sideedaba waxaad ogaataan haddii aan maxay ahaydtay dhulbahante iyo warsangeli iyo fiqishini aanay maamul wada dhisan oo maamulkaas hor dadka rabitaankiisa cidna ma khasbi karto haddii beesha dhulbahante iyo fiqishini iyo gari kombe keliya ay maamul samaystaan rabitaanka iyo ku-xidhnaanta dowladda soomaaliyeed cid hor istaagi kartaa ma jirto waa wax shacabka ka yimi weeye haddaba arrintan shacabka xagga shacabka ka timi in dhulka maxay ahayd magaalada laascaanood laga xoreeyo SNM laakiin waxaad ogaataa inaanay dhammaanaynin haddii aanan warsangeli iyo dhulbahante iyo fiqishini aanay samaysan ama SSC iyo maakhir maxay ahayd aanay samaysan maamul wada jir ah ma dhammaanayso dhibaatada sheegashada somaliland dhulkaas waa laga yaabaa dadka qaarkood inay qabaan in reer maakhir ay kasii mid ahaadaan puntland laakiin dee puntland maxay ahayd kaga joogsan waaye maamulka hargeysa kaga joogsan waaye inuu deegaanadaas ciidamo geeyo maakhir ilaa dhahar bay socdeen mararka qaarkood oo dagaalo ka dhaceen waa tahay marka kan axmed ahaan aduma waxaad aaminsan tahay in beesha dhulbahante iyo beesha fiqishini iyo hadda intan guddiga farshada samaystay waa beesha fiqishini dhulbahante gari kombe iyo gabooyi intaas hadda guddiga samaystay ma aaminsan marka waxaad aaminsan tahay adigu in warsangeli uu puntland kasii mid noqdo oo puntland la joogo oo intaasuna ay maamul samaystaan maadaama ay buuxiyeen shuruudihii oo gobol iyo bar iyo ka badan bay yihiin maadaama galmudug gobol iyo bar tahay bas waxaad aaminsan tahay
in warsangel iyo dhulbahanto la isku daro sidee baa adigu macnihii axmed ahaan gogtoomi ahaan fikradaadu maxaa weeye aniga fikradeydu waa caddeeyey haddaan laakiin kuugu celiyo waxa weeye ma dhammaanayso haddaan dhulbahante iyo warsageli iyo beelaha fiqishini iyo gerikob aanay maamul wada dhisan oo state yani stateda soomaaliya la mida ee aanay samaysan dhibaatada somaliland ee sheegashada dhulkaa annagaa iskale gobollada sool sanaag iyo cayn iyo maakhir annagaa iskale idinkuna haddaydan nidaamkayga ku qanacsanayn waad ka guuraysaan ma dhammaanayso dhulbahante keligii arrintu maaha sheegashadu dhulka warsageli iyo dadkiisa iyo dhulkiisana way khusaysaa marka dhulbahante iyo warsageli waxay ku khasban yihiin inay hal maamul wada dhistaan puntland waa dalkaanu ka mid ahayn waa maamul goboleedkaanu ka mid nahayn waa walaalaha iyo haddana hil harti bay noola joogaan oo noogu yimaadeen oo ku dhimanayaan oo raggoodii jeelasha mandheero ku jiraan ama ku dhinteen waa uga mahad celinaynaa wax dhibaato ah oo isdiida ana ka iman mayso baaqaba wayna u gogol xaarayaan sidii ay u dhismi lahaayeen labada maamulka maxay ahayd dhulbahanta iyo warsangeli iyo beelaha kale la degaan waa tahay axmedow waxaa jirtay dhalinyaro siyaasiyiina oo ku eedeynaya madaxweynaha puntland in dagaalka laascaanood uu siyaasadeynayo oo uu leeyahay muddo kororsi haniloo sameeyo arrintaas maxaa ka jira wallahi horta de madaxweynaha afkiisa kama inaan maqal maxamed siciid deni runtiina waan u mahad celinayaa marar baa jirtay aan anigu saxaafadda ka maagi jiray laakiin sida uu hadlay maalintii dhaweyto iyo sida ka muuqata maxay ahayd ficilada puntland ka yimi ama ha noqoto dadka dhibaato dhaawacyada iyo barakici dadka oo shacabka reer puntland mawlaadaha iyo harti ay soo dhaweeyeen iyo dee maxay tahay hiil harti iyo raggan siciid deni dadku ma jarteen marka la yidhaahdo iyo dashiishe waxa weeye laascaanood bay joogaan oo ku dhimanayaan marka haddii madaxweynuhu aanu de raalli ka ahayn dadkaas inay dadkooda u gurmadaan arrintaas ma arrin fuli lahayd ama imaan lahayd ma aha waa uga mahad celinayaa ta labaad muddo kororsiga de waxaa dastuurka puntland iyo baarlamaanka puntland iyo isimada iyo dhaqanka puntland iyo shacabka puntland bay u taallaa inay ka gaadhaan maxay ahayd wada tala qaran oo maamul ka yeeshaan oo markaas la qaataan waa tahay siyaasi baa tahay kasoo jeeda magaalada laascaanood runtii xoogaanla u ah arrimahan hadda socda dad badan baa isweydiinaya maxay tahay sababta dhowrka bilood loo daawanayo godka gooja cadde oo jabhadda argixisada snmta loogu daadan waayo maxaa taa ugu jawaabaysaa guddoomiye wallahi taa waxaan uga jawaabayaa rooma maalin lama dhisin sax howlgankani muddo hadda 4 bilood ayuu socdaa inkastoo dadka qaar ay anigu aan qabo ilaa December inuu socday oo maalintii hadraawi la dilay iyo marka laga soo bilaabo inkastoo dhaqdhaqaaq uu jiray oo dadku ay aad u cabursanaayeen oo dhibaatooyin jireen oo kacsanaayeen laakiin waxay u baahan tahay waqti 15 sano nimanka godad ka qodanayeen deegaanada SSC maleesiyaad ku soo ururinayeen mujtamaca dhex galeen marka waxay u baahan tahay waxyaabo badan in la qabto si looga furfuro xarkaha loo furfuro marka tiibaana dadka gudaha jooga iyo saraakiisha iyo ciidamada iyo isimada iyo hiil hartiba arrintaas ay ka shaqeynayaan hadda ku jiraan waan ku rajaynayaa inay dhawaan arrintaas wax iska bedelaan waa tahay guddoomiye sidee u aragtaa hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya su'aashii laga weydiiyay gobolada SSC halka su'aasha igu soo celi maxamed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhowr habeen ka hor su'aal baa la weydiiyay ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood siyaabo kala duwan ayaa loo fasirtay hadalkiisa marka adigu ka guddoomiye ahaan sidee u aragtaa hadalka madaxweynaha wallahi horta madaxweynaha waxaan isleeyahay sidii laga rabay iyo kitaabkii uu ku dhaartay ilaa hadda ma fulin isaga iyo dowladdiisuba sababtana waan caddaynayaa
dad madaxweynuhu ummadda Soomaaliyeed buu madaxweyne u yahay dalka dadka iyo diinta ayuu ku dhaartay dadkani waa dad Soomaaliyeed goboladaas calankii Soomaaliyeed bay huwan yihiin madaxweynaha adaan ku hoos tagnaa oo mas'uul noo abay yiraahdeen in uu hafar bilood ay hadda marayso inuu yiraahdo muuse wada hadla oo aanu xataa maalin qura madaxweynaha afkiisa aanay ka soo bixin ciidanka muuse ha ka qaado dadka ha ka dulqaado deegaanadii beeshiisu lahayd ama qabiilkiisu kasoo qabiilka maxay tahay beesha SNM ay degto ee xuduudkooda ha geeyo hal maalin afkiisa ma or si aanu markaa nabadgelyada uga shaqeyno marka ma aaminsani waxyaabaha hadda madaxweynuhu afgobaadsiga uu ka dhiganayo wax ma arko maxay ahayd wax shacabka reer SSC u qanca u qalma uma arko waxaan u arkaa maxay ahayd seexin baan u arkaa uu ku seexinayo maxay ahayd yani carada ka muuqata dadkaas ay u qabaan maxay tahay ama yani hagarashada ka muuqata dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh uu yahay waa tahay dad badan baa waxay aaminsan yihiin in sheekadan raisimka ay ku wada socdaan xasan sheekh maxamuud ismaaciil cumar geele iyo muuse biixi see u aragtaa arrinta adugu markaa hadallada fiiriso iyo xaaladdu sida u socoto iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhiiran la inuu yiraahdo dadkaas waa la xasuuqay dhibaata loo geystay deegaankoodii baa la joogaa Soomaaliland waa in ka baxda ciidanka maadaama uu ku dhiiran la yahay ma isleedahay arrintan waxa dabada ka riixaya ama haya ismaaciil cumar geele iyo muuse biixi iyo xasan oo isgroup oo sheekadan Soomaaliyeedsiga meesh ku jirta ma isleedahay gudoomiye والله نيو هو أنا قلت هي محمد بعماد ما صدقتها أنا قلت شيء كذا إيريسم كاس وإسكشة كعادي فيه وأي كان تعتبر ضفيدة هذا موسيقى مقطع يضدك إستجا تاجر يا شواء لكن إيريسم واحد ليرة هذا وقولوا راهو معي هتي أنا مثلا هاي وشعب مثل بيش هوية الربع إن لك عيو ومعي هتي لقوش هيو خير إسي قد يضلنا يلدق علمان لكن دعت شعب الصومالية دير والله كوفرت دقارها بيشة هوية وحكستا ويكدرك سنتهاي ويكدرك سيهين ويوجيهين حقيقة إيو إسلام لماذا إيو صومال لماذا أنا خير إسسي ماشي كتاجيهم ويأركان ماشي محياتي بموسى إيو أنت الله شقين ساي كتاجيهنا ويأركان مركز دل لقنا عنا يلغي يبين كرا يوم أنت إير الصومالين ونهاي هدي إير الصومالي بيش أسلم أما محياتي موسى يدك سوي ولا يهين وتشعل يهين محي وقع أيام محي ودك الصومالية وقع أيام شلي بيانا هين مركي فيصل على ورابي لها ويل كارت سبو كل شيء ويل كل شيء حمر وح النحيقة كارت سبو كل شيء تاريخ ذو وح لإلا ويو وح قرن ويي وح دوبم ويي دتك غير مقدشنا ويي كل رسينا تاس تا محي هيتي وضو ما هليان قيمت اللي بعد السؤال waa tahay gudoomiye mahadsantahay runtii sida su'aalaha ugu jawaabayso waxa jirta wada hadallo muddo soo socday isimo dhaqanka koonfurta Soomaaliya oo ka yimiyo oo laascaano soo booqday oo runtii soo arkay xaaladda magaalada soo indheeyay xaqiiqda dhabtaana soo arkay muddo ayuu Muuse Biixi ka warwareegay in nimankaas u yimaadaan madax dhaqameedka markii dambe Mareykanka ayaa ku khasbay waa baxeen Hargeysa tageen wali wax loo sheegayaa in uusan qaabilin xataa marka sidee waragta adigu odayaasha koonfurta ee dhexdhexaadinta ku jira meesha hayse Muuse Biixi waa aqbalaya oo uu qaabilaya والله أنا كل دي رنتي موسى وحكست ولا قفل الكرا إنه ديدنا ولا قفل الكرا إن دتك استمدا إن غير هرجيسة أي أما دتك الشعب كا بحياتي إنه كوكن عيان إنه وضياشة قابلو لكن كأنا ويسول وديع كرتا لكن أنا ما قبل إنه قابل أيوه السبب بدن درتيد وأنا لو كان دونا waxaa kaloo jirta oo dhibaatada kale ka jirta Hargeysa waxa weeye isimada hadda Muuse ku xidhani waa isimadii caynaba tagay ee isimada hadda koonfurka yimi qaabilay ama dhaqanka koonfurka yimi qaabilay dhaqanka marka reer Hargeysa laba qaybood buu kala noqday markii dagaalka la saacanood uu dhacay qaybo waxay soo dhaweeyeen baaqi reer SSC ahaa ciidanka laga dulqaado qaybina Muuse ayay ku taageereen dagaalka marka
ilaa hadda qaybta muuse uu arrintan u xil saaray qaabilaadda isimada koonfur ka yimid waa qaybtii isaga la shaqaynaysay maaha qaybtii kale aad iyo aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha waqooyi bari ee soomaaliya axmed raadsato oo isagoo ku sugan dalka kuwait barnaamijka nagala qayb qaadanayay intaanu barnaamij lamida ku kulmi doono waa bahda daruush t v and radio oo idin sidaas iyo sarag dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu